qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaagaba banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadaydii iyo ehelkaygii aan u noqdo hooyaday baa keligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay wuxuu ku yiri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna sakama maqal waxa uu yiri waxaan ku yiri war 4 rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso markaas wuxuu yiri waxa tukataa inta aad rabto waxa uu yiri waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo aayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay aayada quraanki waxay amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah aayada qalbigayga ku soo noqonaysay ducaduna waxay ahayd ya wadud ya dhul arsh al-majid ya fa'alu lima yurid ducooyinkaas ayu akhriyay aghithni ya mughith wa aghithni bi ku'al ali ducada markuu akhriyay ya rakacadihiisa ku dhex jiray ya wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isageena salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaas uu ninkii dilay waa weydiiyay oo wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibul mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudariinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas anigu iska rabtaagaa buu dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqifni marka lahayd albaabka koobaad samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaaceedii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiiban kuugu imid walaal waxaan ku leeyahay kuma amrayo waxaan ka dalbayaa sin xariisa shariidka kooban oo aayadaha quraanka iyo xadiiska iyo qisaska islaamiga ku duuban yihiin cid aad gaarsiin karto dhan gaarsi inta kuugu jirto dhan la sheer galaysa